السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيارت قيمها إيقايا لو كسو دواد هيكس تكنولوجي وعاد أقا براتين إني إدين سو قد بسو عشروكو سابسان graphical design video editing يا تكنولوجي ده ما أنت ما أسلا عوان كو عرقتين وحا إدين سو قد بدونا وحكا دون وحا إدين سو قد بدني جرني oo ah in aad idin soo bandhigno scholarship ay bixinayso mid ka mid ah dawladaha ku yaala caalamka wadankan oo ah wadan yar kuna yaala Aasiya ayaa wuxuu bixinayaa scholarship u furan dhammaan wadamada gaar ahaan waxay aad u taabanaysaa wadamada muslimiinta ee caalamka ku yaala arday badan oo Soomaaliya ayaa ka faa'iideysata mar walba scholarship-yada caalamka ay bixiyaan inkastoo ay dhibaato ay ku tahay dhanka passport balse arintan ma saameyn doonto passportka waxa ayna wadataa waxyaabaad badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed aad uga faa'iideysan karaan hadii ay sid ay tahay uga faa'iideysan scholarship kan wadanka soo bandhiga waxa lagu magacaabaa sida halkan ka aragtaan the government of Brunei Darussalam Brunei Darussalam waa wadan yar oo ku yaala qaaradda Aasiya waxa uuna geeska ku hayaa badda China sidoo kalena waxa xiray oo dhanka dhulka ka xiga Malaysia hadii abaaritaankeena ku socono wax yar aan idin tuso waxa uu yahay wadankan iyo meesha uu ku yaalo waxaan tagay Wikipedia waxaan raadiyay magaca dalka waxa la lahaa National of Brunei waxa kale lagu magacaabaa Brunei Darussalam ama the top of peace waxa uu ku yaala badda sida u jeedaan halkan waxa uu geeska ku hayaa Malaysia waxa uu dhinaca kale ku hayaa badda wadankan waxa aad ila cajiiba in ay yihiin dad muslimiin sunni ah inkastoo wadanku uu yar yahay dadkuna ay aad u yar yihiin waxa kale inoo muhiim ah hadaa ardaynahay marka wadan aadayno inaan iska aadin wadanka laakiin aan fiirino GDP waxa waaye dhaqaalaha wadankan sidoo yahay 2011 waxa la sameeyay estimation waxa loo qiyaasay 21.23 billion dollars aan ku noqono scholarship keene waxa bixinaysa dawladda wadanka Brunei Darussalam waxa ay dhiibaysaa scholarship ayada offer gareynayso wax walba oo ardaygu u baahan yahay ku baxay waxay ina siinaysaa jaamacada 4 ah oo ku yaala dalkaas jaamacada koowaad waxa lagu magacaabaa Brunei Darussalam University iyo University Islam Sultan Sharif Ali iyo University Technology Brunei sidoo kale waxay siinaysaa ardayda tagta wadankaas jaamacad kale oo lagu magacaabo Polytechnic Brunei jaamacadahan dhamaantood rankigooda aad ay u sareeyaan markii aan baaray waa jaamacada aan la yaab rankigooda waxa kamid ah jaamacad lagu magacaabo University Brunei Darussalam jaamacadan waxa ay kamid tahay jaamacadaha ugu sareeya Aasiya 100 jaamacadood ee Aasiya ugu sareeya ranki kalena waxa ay wadataa 300 ee jaamacadood ee caalamka ugu sareeya ayay waxay ka haysataa ay ku jirtaa waana arin aad iga yaabisay sidoo kale waxay ku jirtaa jaamacadan 34 jaamacadood ee ka yar 30 sano ee ugu sareeya caalamka rankigan sida halkan aga jeedaan maahan waa sawir waa website waa official website kan waxa lagu magacaabaa World University Rankings ayaa lagu magacaabaa QS waana website official waxa soo saaray waa wadan aad u sareeyay waxbarashadiisa dhanka wadamada Aasiya marka loo fiiriyo sidoo kale waxaa jirta jaamacad kale oo ayadana lagu magacaabo Polytechnic Brunei oo ayadana jaamacadaha ugu fiican wadanka ku jirta aan ku noqono website-ka ay leedahay dawladda wadanka waa website-kan waxa iska leh Foreign Ministry Affairs ayaa iska leh eligible ardayda la qaadanayo oo nooc ay yihiin iyo qaabka loo qaadanayo iyo waxa ay tahay programkan ardayda la qaadanayo waxa la rabaa in ardayga undergraduate-ka ama se bachelor-ka rabo inuu barto oo u dhaxeeyo 18 sano iyo 20 ilaa 25 sano waa diplomada iyo bachelor-ka qofka rabo inuu barto waa 18 sano ilaa 25 sano ardayda postgraduate-ka rabta inay barato waa 35 jir master degree-ga inuu ka badanin 35 jir sidoo kale waxay xuseen in ardayda dadkan haysta deganaanshaha wadanka Brunei aan loo ogoleyn in ay ka qayb qaataan scholarship-kan waxa jira terms iyo conditions ee u dhigtay dawladda
waxaa jira in scholarshipkan ardaygu ku guuleysta uu bishii heli doono $500 oo lacagta wadanka ah Brunei oo u dhigmata lacag $350 ah. sidoo kale wuxuu heli doonaa cunto u dhigmata $150 oo lacagta dalkaas ah. wuxuu heli doonaa $600 oo buugaag u dhig lacag buugaag ahaan loogu siin doono buugaagta lacagteeda ah. lacagtan lama siinayo laakiin waa buugaagta lacagteeda. wuxuu heli doonaa university accommodation inuu dego dormska jaamacadda ayuu heli doonaa. haddii uu ardaygu haysto packages iyo buugaag oo helo oo doono inuu wadankiisa ku noqdo markii uu jaamacadda dhameysto, buugaagtaas qaadisteeda lacagta ku bixaysa miisaanka xataa ayada ka dhiibayso. waxaa kaloo muhiim ah oo in la xuso mudan, marka aad ku guuleysatid jaamacaddan tigidka waxaa kaa dhiibi doonta dowladda. tigidka aad ku bixaysid oo wadankaas ku aadaysid dowladda ayaa kaa dhiibi doonta, iska soo dhiib ma aha adiga. haddii aad rabtid inaad applicationkan ka qayb qaadatid, waxaa muhiim ah in aysan kaa xirmin, sababtoo ah waxay halkan lagu xusay in scholarshipka uu xirmi doono 28 February 2019 oo ay ka dhiman tahay kaliya 10 beri wax ka yar ama 9 beri. linkiga halkan ayaad ka degsan kartaa, anigana waxaa soo dhigi doonaa hoos website-kan si aad uga faa'iideysataan mar kale. waxaa kaloo jira in la iska rabo requirement ayaa jira. waxaa jirta in la iska rabo warqad lagu magacaabo security clearance statement oo ah warqad ay soo saarto National Security Agency, waa NISA. warqadan NISA ayaa soo saarta, waxaan lahaa security clearance statement doona. sidoo kalena waxaa la iska rabaa warqad ay soo saarto criminal record oo ah warqad Interpol ah oo soo saarto CID. ayadana la iska rabaa labadooda mid ama se labadoodaba haddaa haystid is feel nice. haddii aad complete garaysid oo aad dhamaystirtid formkan ama application aad dhamaystirtid, waxaa ku diri kartaa emailka halkan ka muuqda. lamana aqbali kara ayay leeyihiin attachment ka badan 10 MB. waxaana la iska rabaa ayadana sidoo kale in applicationkan markaa samaysid aad ka dhigtid PDF ama se Word document. formaat kale ma aqbalayo in lagu sameeyo. waxaa jirta in jaamacadaha qaar online loo apply gareynayo sida jaamacadda halkan ka muuqata ee lagu magacaabo University Brunei Dar es Salaam. linkigan ayaa ka dhamaystiraysa. haddii uusan dhamaystirnayn applicationkaaga lama aqbali doono. haddaba ardayda rabta in ay ka faa'iideysato, waxaan dhigi doonaa hoos linkiga jaamacadaha meesha ku yaala iyo linkiga wasaaradda arrimaha dibadda ee qaabilsan arrintan scholarshipyada ah. waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta, asxaabtana ha loo gudbiyo, channelkeenana subscribe-ka hala saaro, asxaabtana ha loo sii faafiyo. waa mahadsantihiin.